أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي maadiisa waa marka la wada ku soo laabanay anagoo wanaag isfareen maxamed iska reebin ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryay dhamaanteenba ilaahay inuu naga dhigo kuwa ku intifaaco xaq iyo wanaag aan sheegayno insha Allah. insha Allah waxaan caawa ka hadlayaa mowduuc isagana muhiim ah qaasatan hadda Soomaaliland lahay muhiimno ah ayaan ka hadli doonaa. mowduucaas wuxuu ku saabsan yahay shahaadatu zuur. shahaadatu zuurka waxaad moodaa waa qayb ka mid a beenta ka mid a weeye. beentana ilaahay subxaana wa tacaala ummadda maxamed waa ka xarantimeeyey. maxaa yeelay qofka mu'minka ah lagama yaabo asaga iyo been inay ku kulanto. markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayakuuna almu'minu jabaanan, ninka mu'minka fulinimo sifata fuliga ah iyo sifada waxa ah iimaanka ma kulmi karaan. markii li wuxuu yidhi nacam, nin muslim oo jabaan waa la helayaa oo aan jihaadka iyo markii la sheegay dhinac dib u guranayo, aan geesi ahayn xagga diinta inuu difaaca aan ku dhiiranayn, waa kulmi karaan uu yidhi. oo sifaat weli sifaat mu'minku waa haysaya qofka. ayakuuna almu'minu markii la yidhi bakhiil ma noqon karaa nin muslim oo infaaqa inuu wax sadaqaysto uu bixiyo. iimaanka ma kulmi karaa nina bakhiil wax bixinaynin, reerkiisa bakhiil ku ah, sadaqa dhanba kasoo horjeedo, haddana oo sifata iimaan haysta ma dhici kartaa? nacam uu yidhi nabiga alayhi salatu wasalam waa ku kulmi karaan qofka muslimka ah iyo sifatan iimaanka iyo bukhlinimada. laakiin markii la yidhi ayakuuna almu'minu kadaaban, ninka mu'minka beenlow ma noqon karaa? wuxuu yidhi nabiga alayhi salatu wasalam la. maxaa yeelay beenta iyo iimaanka ma kulmi karaan, balse beenlowgu wuxuu galayaa sifaat almunaafiqiin. oo nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu noo sheegay aayat almunaafiq halaatha wa fii riwaayatin arbaca markuu ka hadlayay wuxuu yidhi idaa xadatha kadab, been ayuu yahay. waxaa sii dheer mas'ale kale oo ah markhaati inaa haddana been aa furtaa, markhaati been inaa furtaa waa khatar weyn ay leedahay. markhaatida beenta weyn la furay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo aroray axaadiis fara badan. bal laakiin marka hore aan fahanno shahaadada maxay tahay. qofka markuu wax u markhaati kacaya, dada waxay u maleeyaan shahaadada inay tahay tan loo furo keliya maxkamadaha, oo loo maleeya markii maxkamadda nin laba qof oo dhul isku haysato mid kale uu been abuur u dhahaya ninkaana aqaan dhulka inuu leeyahay, oo markaas halkaas oo uu markhaati furo qofkii xaqiisa u qaato. ilaan qofka markhaati keenaa la leeyahay. sidaad axkaamteena shariicada islaamka beeca markii laisku qabsado waxaa la rabaa in markhaati la helo. furiinka ninkii gabadha xaaska isqaba markii la weydiiyo markhaatiyaa la rabaa. markhaatigaas xaqa labada xaq is haysato ayuu xaqooda meel saaraya, ayuu kala saaraya. wuxuu leeyahay qofkaas maadaama waxaa leeyahay qofka albayinatu cala almudaci, markii nabigu leeyahy alayhi salatu wasalaam ninka wax sheegta ayaa cadeen laga raba. cadeenta waxaa kamid markhaati. waxaa leeyahay markhaati keenso. ninkii islaantiisa markay isku murmaan waa i furtay imay ma ku furin, waa ku fur iyo markay ku murmaan waxaa leeyahay shaahid keen, markhaati keen. marka markhaatiga labada qof oo is haysatay ayuu dhinac u ridaya. marka laakiin dada waxaa u maleeya markhaatigaas oo maxkamadaha iyo markii la joogi laha inay shahaado zuurka tahay. laakiin anaga Soomaali haddaan nahay bibaan aan nahay Soomaalida ay naqdeen siyaasiyiin ay wada naqdeen, oo arkaysid in dadka ay kala safan yihiin, qolo kale ay markhaati furayso, qolo kale ay markhaati furayso. masaladaas waxaan rabaa khatarteeda inaan ka hadlo. marka war dadkeenaan banaanka ka joogo siyaasadda oo laysa lana taaqa aan jamal iyo wax aan ku lahayn, oo maanta ninkaas aad difaacayno oo ama siyaasiga ah oo aad adigu gurmanaysid ama xukunka ha haya ama xukun ha doonee, oo aad maanta aad dhiigga kugu karayo, maxaa ka helaysaa berri is weydiis. waxaa ka daran helitaanka, waxaa ka daran dadkan markhaatiyaa tahay ilaa adi shaahidaa tahay. haddaad facebook soo dhigatid ammaanta hebel siyaasi fulaan, oo ama aad dowlad ammaanteeda aad soo dhigatid kuwa hadda haya kuwa kale siyaasa dhan isku jamci, ma ogtahay inaa markhaati tahay. bal arka marka axkaamta ka ratamaysa markhaatiga. maxaa yeelay qofka aad u markhaati furaysid waxaa la rabaa inaa ogaatid inuu xaq ku taagan yahay marka hore xaqa. laakiin haddaad tiraahid u markhaati furtid, taageeridda marka oo la taageerayo waa markhaati furid wey, oo ilaahi subxana wa tacala beri ku keenay. wadalika waxaa weeye qowlun saadirun can cilmi xasala bima shaahid basiir. qofka inuu wax arka ayaa asal u hala leeyahay. zuurkana waxaa la yidhaha huwa alkadib. zuurka marka maxaa shahaadada waa markhaati. zuurna muxuu yahay shahaada zuur. zuurku waa kadib sidiisaba markii istilaax ahaan loo fasirayo, laakiin waa kadib la qurxiyey, waa been la qurxiyey. saas
ayay ku sheegaan culammadu huwa alkadib aladi qad suwiya waxusina fi daahiri liyuxsaba anahu sidqun macnaha waxa weeye waa been la qurqurxiyey oo dadkay u maleeyaan run u maleeyaan walidalika dadka taageerayaasha hadda siyaasadda soomaliya taageerayo been ayaa qaarkood sheegayaan haddana waa qurxinayaan waxay ka dhigayaan dadka say u rumaystaan runay ka dhigayaan waxay rabaan mar kasto nin kasta wuxuu soo raadsanayaa fakrada anfacaysa isaga nin hadduu hadlo hadalkiisa waa lasoo goynaya dhinaca halaha ka rabtida kasoo goosanaysaa nin hadduu sheekh wacdiyo dhinaca kasoo goosan walidalika waxaa cajiiba marka dadka facebookada soo fariisanayo ama ducaadda ah oo marka xaqa u maleeya inuu hal meel uu taagan yahay koox ayay la jiraan kooxdaasoo maanta dhan uu difaacaya waa difaacaya war shahaada u faraysa qofkaas wax u qarsoonimo weyd adig wax u qarsoonimo walidalika marka hata inaa furan qofka waxaa wanaagsan inuu arrimahaas camal dhexdhexaad ka ahaado xaqa uu sheegayo dadka u bayaaniyo qof xaq wada leh ma jirta xaq ma wada kulma ma dhihi kartid hebela xaq wax kastoo sheega macnaha beentiisa iyo runtiisa macnaha inaad tiraahdo ammaantid dembiga shahaado zuura tahay maxaa yeele bini aadamka waxaa ku kulmi karto meele xaq ku leeyahay siyaasiga waxaa laga yaabaa meelna xaq ku leeyahay meelna waa ku xaq daran yahay haddaa kala saari karin aad dhihi karto ninka meeshaas waa ku gafay meeshaasna waa ku saxan yahay dhihi karin oo ammaanna kala dul dhacaysid waxa qayladkiisa iyo saxiisa ammaan kala dhacaysid shahaado zuura tahay oo waxaa u markaati furaysaa beri ilaahi subxana wa tacaala qiyaamaha kuu keenayaa beri waxaa lagu leeyahay qofkan u markaati furtay waxa sooma ku qaldan walidalika waxa xubu kulli shay yucmi wa yusam jaceelka u qabtid iyo taageerada u qabtid ayaa waxa ku naqatay inaad iska taageertid saxi qaladkiisa walidalika markaa aragtid kooxaha hadda isdagaalsan markaa aragtid dadka uu kala safan nin kasto ninku ammaanaya hal ceeb in laga sheega ma rabo war yaa ceebka saliin eh min aadam ma jiraa ama dad xukun haya ama xukun raba oo ceebka saliin ma jiraan asagoo xukun haya inuu bini aadam kulli qof kasta ceeb uu leeyahay fama baalik maamul dhan ummad dhan oo wax kasta laga heli karo oo nin kasta taqaan xataa inay gaalo u shaqeeyo mataqaana dadka hadda oo dowladda ku jiro iyo kuwa rabo yaa u shaqeeya mataqaana ma kala saari kartid laakiin markaad tiraahdo kuwa mucaaradka keliya gaalada wataan kan laakiin gaal ma wato marka hataa furta shahaado zuur tahay haddaad ogeyn oo kala saari karin cala alaqal xaqa ka sheegi karin inaad ka gaabsatid dhibkaas ayaa waxaa leeyahay marka zuurkaas imaam qurtubi wuxuu leeyahay kadib waa liyutawasal biha ila albaatil saasuu ku fasir zuurka wuxuu yiri waa been lagu talagalay in lagu macnaha oo baatil ah oo lagu gaalo yutasal min itlaafi nafs dad in lagu laayo ama oo xoolo lagu dhaco ayaa u markaati furaysa maxaa yeelay qofkan u markaati furaysa gaf kastoo galo hadduu dhiig daadiyo maanta adiga waxaa darafaa ka tahay markay shalow oo markaati furtay waxaad tiri ninkaas waa fiican yahay ninkaas waxaad tiri waa ku saxan yahay dadka dhan asaa ka saxan wax qalad kuma jiro wuxuu sheegaya dhan sax waa ay tiri waa mushkilo wey hadduu dhiig ku daato sababtiisa dhibkeeda leedahay walidalika waxaan kasoo qaadanaya marka aayadaha qur-aanka laba aayadaan ka qaadanaya oo ilahi subxana wa tacaala markuu ka tilmaamayo fajtanibuu rijza min alawthaani wajtanibuu qawla zuur ilahi subxana amr u bixiyey war qowla zuurka ha layska dhaafo walidalika ibnu kathiir iyo markay ka hadlayeen waxay leeyihin ikhtalafuu fi qowli zuur qaar waxay yihin qowl zuurka khilaafa ka taagan laakiin waxaa cad inay tahay macnihiisa waxaa kamid ah qaar waxay yihin zuurka waxaa waaye qinaaga iyo heeska iyo wax qaara yiri qaar shirki ku tilmaamay waxaasoo dhan macnaheedu waxay keenaysaa waxay tahay wax la qurxiy waa kulleyta waxa xaq ahayn shirkiga markaa ilahay wax lu shirkiyaysa xaq daraa ku taagan tahay qowl zuurkana waa markaa qof markaati furtan xaq dara ayaa marka qiinahana waxa waaye sood la qurxi waa asaga waa hadal heeska laakiin waa la qurxisama naqam iyo waxbaa loo yeelay zuurna saas loogu tilmaamay marka dadkan oo facebookyada soo fariisanayo culamadooda iyo caamadooda iyo kulli iyo nin kastoo iska taageersan oo maanta dhan hal meel ammaanayo waxaan leenahay war shahaado zuurnimada akhriya baabkeedu ilaahi subxana wataala waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraama ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddan waxa waaye bimacnaa shahaadada zuura ku fasira asaga wuxuu leeyahay aayaddan waxa weeye waa hiya kadib mutacamid waa dhaar been loogu talagalay balse ilahay aayadda qur-aanka wuxuu nagu leeyahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm aayaddaas arrin mucjib waa ku qabanaysaa dadka aanan dibadda joogo aan kale kasayn siyaasiyiinta waddanka gudaha ku jiro xiriirkay gaalada leeyihiin iyo hoos waxay ka wataan ka kasayn xukunka iska saaraya qofka oo markaati naqanayo waxa weeye aayaddaasaa qabanaysa laa taqfu maa laysa laka bihi cilm maxaa dhacay ina asamca walbasara walfu'aadu kullun ulaa'ika kaana canhu mas-uula aayaddaas tafsiirkeeda u naqda markaad aragtid culamada waxay ay ka tafsiirayaan markaad aragtid sidoo kale waxa weeye shahaadaa qarisay haddaad qof iska ammaantid oo u markaati furtid oo aad meel iska raacdid oo maanta dhan eegale aad difaacaysid
waxaa qarisay shahaadada xaqeedaa qarisay ilahayna qur'aanka wuxuu leeyahy walaa taktumu shahaada waman yaktumuhaa fa inahu aathimu qalbuhu wuxuu leeyahy ninka qariyay shahaado maxaa yeelay qof aa wanaag ogtaa wanaaggiisa dhana qarinaysaa kan si hadhow dadka ama ay u dooranin ama ay asaga qaadan kanna ceebihiisa dhana qarinaysaa waxaa rabtaa dadka inay doortaan taas ay waxay noqonaysaa marka inaad taqaday shahaadadan ayaa qarisay ayay noqonaysaa axaadiista nabiga alayhi salatu wasalaam shahaadatu zuurka waxay kamid tahay min kabaa'ir adil waxay kamid tahay dunuubta waaweyn ay kamid tahay xadiiskii bukhaari muslim soo saaray nabiga alayhi xadiis anas su'ila rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam waxaa nabiga la weydiiyey can ilkabaa'iri waxaa la yidhi dunuubta ugu waaweyn kuwa kamid ah wuxuu yidhi alshraaku billahi ilahay ina wax u shirkaysa dembi ka weyn ma jira waxaa kamid ah cuquuq lwaalidayn labada waalid ina caasi ku naqatid wuxuu ku xereeyey waqatlu nafsi saddex wuxuu yidhi waa shahaadatu zuur maxaa yidhi ummad dhanay baranaysaa ummad dhana waxaa la rabaa xayeysiin iyo dicaayada meel lala yimaada la raba ummad lagu dhumiyo tadliil shahaadadana qarinaysaa maantana qof ammaanaysa ku celcelinaysa ammaantiisa amaan dadka waxay umaleyn run masaakiin ku sirmayso xaqaas qaadanaya yaa ka mas-uule adiga u qurxiyey adiga tasyiin u sumeeyey war walidaal waxaan leenahay war soomaaliya shahaada zuurkana lagu ibtileeyey shahaada zuurka iska ilaaliya qadka telefoonka alo هلو شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفكار تيفية. شيخو ها لبس سؤال عن قبا. هاي سؤال شكو بعد وحوي شهادة سور كأكشة كيسي تصالح مركا أسوقاته وهو كيات يحضر إيو مدحوين فرماجو ويسكون عسيين سيدا كور قبضه. waxyaabaha ay iskugu dhacsan yihiin haddaa u marqaati furo ninka la yidhaahdo farmaajo oon ogahay aniga nin soomaaliyaan ahay yacni dhibaatada kenya ay ku hayso soomaaliya ayaan ka warqabaa marka haddii saas aan ugu marqaati furo ma waxaa iga soo gaaraa dembi waxaad og tahay haddaad cilmi u leedahay masaladii kuma xirno dowlad shahaada zuur markaan ka hadlayna arrin caama ka hadlayna waxaa weeye walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmi ilahi subxana wa taala hadda aayadda qur-aanka aan ka hadlaynay waxaad cilmi u lahayn ha u markaati furin ma ag joogtaa maalin kasta markay ay kulmayaan waxay isku khilaafeen ma ogtahay wixii banaanka laga sheegay iska dhaaf wax haddaad xaq u ogeyn inaad tiraha wallahi ani xaqaan meeshaan ma ogeyn inaad tiraha saasaa adiga saliim ku ah ayaadna ku badbaadi kartaa laakiin haddaa isku dayid inaad markaati naqatid malaa'igta waxaa la doonaya qofka muslimka inuu wuxuu arkay oo ka markaati fur ayaa ah walidaalika ilaahi subxana wa tacaala markuu ka hadlayay qoladii suuratu yuusuf oo noo sheegayay qofka muslimka ah waxaa la doonayaa inuu mar kasta ku dadaalo wuxuu arko inuu u sheegay kaliya ayaa muhiima haddaad waxaad arkin aad sheegaysid waxay noqon kartaa beri inaad beri ilahi subxana wataala xaggiisa aad ka dimbaawdo marka bisarfi nadar ama kan ha gardaraan ama kan gardaraan waxaa cilmi u leedahay ka markaati haddaad ogeyn waxaa leedahay wallahi ma aqaan walidalika nabiga alayhi salatu wuxuu yidhi kafaa bilirmi wuxuu yidhi ithman waxaa dembi qof kaga filan an yuxaditha bikulli ma samic sheekaa maqlay b b c aa ka maqlay facebook waxaa ka maqlay idaacada oo soomaali raadiyo muqdisho ka hadlay aa ka maqlay universal aa ka maqlay waxaasna iska tiraahid oo aad dadka aad ku dulmisid dembi ku leedahay wax cad haddaad haynin wax markaatim furayd haddii lagu keeno waxaa tiraha ani waxaas kama ogi dhinaca kale halow asalaamu calaykum sheekh suuli wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shiikho waxaa kula hadlaya waa cabdiqaadir axmed xasan kaala soo hadlaya dalka kenya waa gartay raba inaan ku weydiiyo su-aasha ugu horeyda markaan soo qaato salaada markii lagu jiro imaamkoo kale markuu salaada dhameeyo in badan masaajida way isku khilaafaan in ducada imaamka uu duceynayo jamaacadan aamiin ay leedahay taasi in macnaha wax khilaaf uu ka jira in kale su-aashayda labaadna waxay tahay waxaan la shaqeeyaa qolooyin gaala ah meel istaalan ka wada shaqeynaa marka raggii madaxda ah waxay jecel yihiin mar walbo inay ku dhahaan assalaamu calaykum ama haddii qof ayaga ka mid ah oo annagoo meel wada fadhino gaaladii rag muslin haddii ku dhex jiraa marka ani imaado kale assalaamu calaykum markaan dhaha ayaga waxay ku leeyihin wacalayka assalaam haddii ayaga markay ku salaamaan wacalayka aa ku ekaysidna way kuu xanaaqeen waxay ku leeyihin maxaa noo midigta korte ereygaasna su-aasheeda labaad waa taas midda saddexaadan raacsanayan waxay tahay waxaan aragnaa wadamo hadda dad badan oo isbedel badan adduunku markaad dhinac ka tagto wax badanaa aragtaa wadamo hadda waxaa arkay oo ragga iyo dumarka intaysan isguursanin ka hor ilmo iska dhalaya sida hadda congo oo kale ama waddankan kenya oo kale ninkii naagta marka hore saaxiibtinimo ilmo iskaga dhalayaan laba cunug oo kale markaas kadib aa naagta la guursanaa marka ilmahaas ay dhaleen ma dhihi karnaa waddankaa waxa jooga dhan waa wecelo dad muslim miya may muslim ma waa gaalo nacam insha allah waa garta baarak allah fiik akhi ama su-aasha kuwaad waa sax waa khilaaf kuwa jira khilaafka haddii la yidhaaho
ficil asxaabtii ima sameeyeen salaada kadib in la ducaysto nabiga alayh salatu salam waa amray in la ducaysto lakin waxaa laga hadlaya waa ducaa jamaaciga wey jamaacigan waxaad moodaa baahiyaa keentay marka hore dadka carab oo qoxay ahaayeen bal asxaabti waxay ahaayeen dad axaadiis ducooyinka nabiga aad u xifdisan marka ma u baahnayn inay duca jamacsan nin kasta ducaa ma'huurka asaa yaqaanay oo ku ducaysanaya ducooyinka khaasatan nabiga alayh salam oo sheegay laakiin markay diinta caajin badan soo gashay oo dadka ay ducooyinka ay naqatay min baaba hada ayaa waxaa keentay marka ducaa ma'huuradaas inuu ninka imaamka yaqaan oo markaas uu ku duceeyo taasaa marka khilaafka keentay haddii la fiiriyo marka asxaabta iyo ridwaanullah calayhim iyo saas ma samayn jireen ma samayn jirin laakiin ma jiraan sabab bixiso in dadka caamada la baro ducooyinka ma'huurka ah inay jamaacada sideeda in lagu duceysto way banaan tahay khaarij salaa iyo markay tahay laakiin cibaadadan salaada ah in cibaado kale la xariiriyay ay khilaafka uga taagan yahay marka waa iska mas'ala khilaafiya wax weyn ma saa sheegta weeye ninka u arka marka asan dhehaynin waxaan waa sunno waa soo aragto dhehayn oo arrimahaas oo camal u samaynayo waxay dhib ay leedahay mar insha allah haddiise ay jiraan in lagu gooyo ama lagu xanaaqan qofka maaha asal ahaan waa masale iska farci ah su-aasha labaad oo ah wasalaamu calaykumada calaykum waa dhihi kartaa wacalaykum waa dhihi kartaa gaal hadduu yahay haddii laakiin gaal iyo muslim isa fadhiyaan wacalaykum salaam dheh marka adigu u niyeysanaya markaa dadka muslimiinta maxaa yeele magaca asalaam waa magaca asmaada ilahi subxana watacaala weeye laakiin waa soo aroorta qofka markuu ku salaamo inaad wacalaykum aad tidhaahid bal ibn qayim wuxuu leeyahy xataa wacalaykum salaam waraxmatullah xataa ugu dari kartaa masalada xataa in wacalaykum salaam loogu talo waraxmatullah loogu darana markii ay ku salaamaan laa ba'sa bacda culamaa qabto marka masalada iyadana waa iska farci ah oo waxay dhibaysa ma jirin oo in la weyno dadka isku khilaafaan ma ah wixii aad u samayso mujaamalo iyo aad u samayso aad dad dhibkaaga baxsanaysana waaba kuu banaan tahay marka su-aasha saddexaad qofka muslim hadduu ahayn wax kale xukun kale oo furuucda shareecada islaamka laguma xukmaayo furuucda shareecada maxaa yeelay nikaaxa iyo ninka markuu asalka ilaahay ku kufriyey oo gaal uu yahay maxaad isku nikaxsa weyseyn iyo maxaad u samayseen lama dhahayo bal diinteena raxmadeeda waxa weye dadkaas hadday soo islaamaan gaalada ah oo ay soo islaamaan lama dhahayo nikaaxiina faasid waa ilmahooda dhaxalkay wax ka qaadanayaan ilmahooda ay naqanaya ilmahaas si rabaan ku dhalaan mar alislaamu yajubu maa qablah wixii horena islaamka baabi'inayo mar hadday diinta soo galaan ayaa axkaamta furuucda lagu dabaqaya markaasna waxay noqonaysaa ilmahooda xalaal ay u noqonaya ilaa wixii diinta aan soo gelin oo gaalnimo ku jooga kaas waxaa dhaxlayaan ikhtilaafu diin waxay kamid tahay mawaanicda oo irthiga ama dhaxalka mamnuucdo hadday taas ay marka ay jirin ilmahooda xalaal noqonaya walidalika islaamka waa u qiray imaam shaafici axkaamtu kasoo baxsatay suurooyinka madaniga ah waxaa kamid ah tabad yada abilahabi markii laga hadlay ilahi subxana watacaala wuxuu u qiray wamraatuhu alayiri wamraatuhu macnaha waa gabadha xaaskiisi waa soo maha marka nin oo gaal oo mushrika waxa loo qiray inuu xaaskiisa ay tahay maadaama curfi ahaan ay isku qabaan oo dadka og yihiin xaaskiisa la yiri waa loo qiray inuu xaaskiisa ay tahay marka waa u qirayna annaga ilmahooda markay islaamka soo galaan xukunka aan siin doonaa laakiin marka hore xaaskiisa asaga weeye waa shareecada islaamka qabto waa la ictiraafsan yahay nikaaxooda dhinac haddaad fiirisid shareecada islaamka ma inkirsano inkastoo khaarij islaam uu dhacay laakiin maalan nin inaag oo gaala is qabay naagtiyaa soo islaantay ninkeeda waxaa leeyahay ma sugaysaa ilaa muddo ciddadeeda mayaqaynaqaynaya culamada isku khilaafsan yihin qaar dhahaysa cidda caadi ma ka tirsanaysa sanada qaar ay sugaysaa asaga islaamka inuu soo galo suga intii nin kale aroosi lahaa iyo ilmaheeda ay ka dayacmi lahaayeen waxaa leeyahay asaga hadduu islaamka soo galo markaas waa isqabtiina laleeyahay qaar oo soo gala islaamkan oo nikax loogu celin ma jiro dadka mushrikiinta ahaa oo soo islaamayey asaga iyaga iyo xaaskoodane qof la yiri soo ismehersada mar labaad ma jirin marka masaladaas waa mas'alo diinteena ee aad iyo aad u wanaagsan tahay oo yusrigeeda ku tusaysa dhinaca kale halow ha السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سؤال عن قبا تنكوبات أنا قلت سؤالي جوجن هويا هاي جورا إسكول إيدي جنيسي واقرت مركز كل كي جنيس شيء تمنجر إلى اللي تمنجر هاي جوا نين معلن أو جمهر حد واقرت مركي والورك ila ii sheeg waa xanaaq waxaan gabadheed mana ku meersantan welina ma aysa gaarin guur mana u rabo waa ka dhigtay dood badan kadib gabadhi waa ii furay haa haye gabadh aabeed joogo
oo hooyadaad joogto oo magaaladii degan inaad mehersatid adoo macallin ah qalad ay kugu tahay maba kuu rabato talimiintaan ku iri gabadhay sidii un laygugu furay waa garta maxaa dembi oo aniga iga soo gaaraya tan koowaad waaye nacam adiga horta aabaheedaa ka furay sooma aabaheed waa jooga sooma su-aasha labaad aan israacsada shiiqow su-aasha labaadna waxa waaye 4 xaas nin leh haddii uu dhinto oo nin walaalkiis oo xaas markaas qabin 4 naag ma dumaali karaa labadaas su-aalan qabaa nacam ama su-aasha koowaad oo ah gabadha weli la-aan la guursado oo la meher xado waxay ku xiran tahay guurkaas inuu socdo iyo inuu istaago waxay ku xiran tahay weligeeday ku xiran tahay hadduu diido weliga oo cilad uu ku sheego qofka wax guursada uu yidhi aniga raalli kama ihi maxkamadaaba ka furaysa qaaliga waa uu furaya sharcigan waa qabaa oo markaas adiga hadda wax dembi ah ku jirta mal hadduu aabaheed gabadhii ka furtay oo yidhi aniga ninkan kuma qanacsani ama uu cilad uu sheegay u furayna asaga wax fiican uu sameeyey inuu u furo waa wax wanaagsan waa marka wax dembi meeshaas kama muuqdo maxay weliga ku xiran tahay hadduu weliga ogolaadana sidii Soomaalida ay sameey jireen gabar lama harxaday ayaa reerkeeda xaal loo keenaa lacaga la siinaya reerkii waxa leeyahay gafaan galnay gabadhii waa la boobay raalli ka ahaw hadduu raalli ka noqdo uu yiraahdo marka bes waa xaalkayga qaatane nikaaxasna sax u noqona asagana marka weliga ayay mawquuf ku tahay arintaas marka xaq uu leeyahay weliga gabadhiisa haddii laga xado inuu dacwoodo oo yiraahdo gabadhaas aniga raalli kama leeyahay maadaama laga xaday waa xaq uu leeyahay marka wax dembi halkaas kama galin mas'alada kale nacam haddii qofka hal dumaal afarna waa dumaali karaa hadduu asaga xaas qabin afar waa dumaali karaa qofka inuu oo hal nikaax ma ku sameynaa dabcan qof oo nikaaxsana haddana qofka kaloo nikaaxsana haddana qofka kaloo nikaaxsana marka wax laa ba'sa biha kaas sharciga wixii hal loo baneeyay afarna waa loo baneyn karaa nacam dhinaca kale halo qofkaas ma halo telefoonka igal hal akhi tv-ga iska daa هلو هلو شو يوصلي؟ وأكون مغلى التليفون كهذا عفوا شو يوصلوا حرب السؤالين كويتيو هاي كمباني أنا شقيا هاي سنة كمركون دماغه لايك حد وكلا وحيسي عندك لعشان بونس كلا ده أما فصح عيد لو تريك ده وكلا مركا لعشان حلال أحنا شو ده نعم حلال والعكس وقاعد ذكرته فير وحي لغو سيو هدي لغو سيو صوبت لغو هدي الأرجر نوا شاقني نبي عليه الصلاة والسلام ان مدحدي oo nasaarada ahayd ayaa hadii u keeni jirtay mana weydii jirin maxay isiiseen marka ama ciid ahna ku siiyaan ama sanad cusub ku siiyaan lacagtaas xalaal ay ku tahay wax xaraan leh ka qaadinin waxyaabaha diinteena xarintas lagama qaadan karo hadiyada laakiin wixii xalaal ah sida lacagtaas oo kale xalaal ay ku tahay insha Allah khayr Allah wa ma tadkara barakallahu fiik dhinaca kale halo الو 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 ها الو ها شيخ اصولي ميا ها شيخ حمران كسو هدلا ما فهمتي واقرت laba luqda hal luqdo waxaan rabaa laba qaab yani inaan ku weydiiyo waxaan ka shaqeeyaa company sigaar ah واقرت lacagta aan ka shaqeeyo kala sheeqada qaar waa xalaaleen sheeq qaarna waa si kale ka dhigan iyo ka ganacsigiisa asiga naftirkiisa نعم marka su'aashaas kaliyan qabe su'aashaas akhi sheeqa weydiisid qofka muslimka xaq wuxuu leeyahay sheeqo rabo oo qayr ku tuhmaayo cilmi ku tuhmaayo wax weydiiyo haddii aad weydiisid sheeq oo ku yiri xaaraan way ma ku wanaagsan sheeq kale weydiisid ama haddii aniga weydiisid aniga waxaan leeyahay karaahi waay حرام مقارن محيالي حتى كراهيديس كراهي لذات وكراهي أصل معها محيالي أستقم الغوص قرامه وضرر عفمات وحوضبا نعم لكن ولذلك حرام لغيره إن لا جارسي على القلب حرام لغيرسينا حرام أصل معها لكن حرام لغيره مركا قفك كراهي كل هذا ومركز تكشف قيستنا حرام تو كله يعني كله مركا عن كل إسكدا إن تكشف قيست لنا تجار قناعس كالقل إن شاء الله لناكل هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عثمان سوري مياه. السلام عليكم وعليكم السلام. سيدة عفمات. بارك الله فيك أخي جزاكم الله خير. مقعي ومحمد الشيخ يوسف. واقرت. وحان ربي سؤال مهم
waxaan ku noolaa jiray South Africa waa garta sidaa la socoto boqolkiiba 90 dukaamada South Africa ee Soomaalida sigaar lagu gadaa boqolkiiba 90 waa garta culummaa noo timiday oo qaar badan oo culummo waaweyn oo Soomaaliyeed oo aad taqaano qaar waxay dhaheen yani sigaarka iyo raashinka yani dukaanka lagu gaday haddii raashinku uu badan yahay maxaa la dhahaa lacagtu xalaal ay noqonay waa garta qaarna waxay dhaheen waa xaaraan haddiiba sigaar uu ku jiro waa garta calaa tacaal waa kasoo tegay ilaahay macnaha markii aan ka shakiyey in muddana aan ku nool waa kasoo tegay lacagtii South Africa aan ka shaqeeyay waxaan ku imaaday Yurub aan kusoo galay waa garta Yurub markaan soo galay muddo kadib waxaan ka warshadaan shaqo ka helay warshadii markaan ka shaqo bilaabay warshad busketiga iyo waxaa samayso waa garta qansiir iyo waxbaan ku arkay doofaar waa ka tegey maasha Allah shirkadan Amazon ee aad taqaano aan ka shaqo bilaabay waa garta shirkadda Amazon waa Boosto iyo DHL-ka waxaan ku arkaa markasto kartooman ay ku jiraan qamri waa garta sheekhow markaas sidee tii South Africa oo lacagteedina aan halkan ku imaaday Yurub sidee xalaal ay ku noqonay welina waxay iga dambeeyaan lacagtii South Africa aan ka soo shaqeeyay waa garta tan hadda aan ka shaqeynayo Amazon kartooman yani wax qoyan maaha laakiin kartoomankii waxaa ku jiro qamri iyo waxyaalo kale oo badan oo xaaraan ah waa garta waana xoogeygii oo waxaan u dhididayo waay tan inaad ka shaqaysid ku fadwoodo tan cidna ima fadwoon hay marka waxaan ku fikirinaa iska daayo ayada laftigeeda marka waxaan ka helay sanadka cusub inaan sakuurad ka noqdo waa garta marka haddana waa fikiro waxaan isdhahaa haddaa sakuurad ka noqoto soo haddana qamri ilaalimaysa waa garta marka maxaa sa xaaraana akhiyow masalada sigaarka hadda dhowaan ka jawaab su'aashaas waa beeciisa haddii masaladii culimada aad sheegtay ay ku sheegeen waa sax way xaaraanta haday badato oo xaaraanta ay yar tahay oo xalaasha ay badan tahay markasta xalaasha lagu xambaaraa oo ayaa lagu xambaaraa haddii warac ahaan meesha qofka isdhowraay hadduu ahayn oo ah ama haddii dembi waxyaaba xaaraanta ay bataan markaas wa isbuhuma akbar min nafcihima sida qamrida lagu sheegay markii la xarantameynayay markeeda hore marka taas waxaan qabaa lacagtaas karaahiila ku jirtay maadaama dhididkaaga ka shaqaysatay wax xaaraan kama muuqato ama masaladan kale qamri ayaa timid qamriga waxa waaye nas ku soo arooray 9 sifo ku sheegay oo qaaditaankeeda waxeeda dhan marka haddii Amazonka qaybta qamriga ka shaqaysid oo qamri qaadid xaaraana ku jirta lacagtaas ha qaadanina kana ka tag shaqadaas sida uu dhaqsaha badan hadday tahay Amazon dhamaanteedba ma baahan yani adiga hoosha qabatida laga hadlaa iska dhaaf dadka hooshooda iska dhaaf adiga maxaa qabataa ku jiraba kartoomanka qaar aba qamri ku jiro adiga qabatid Soomaha adaa qabatid hooshaas qaar aan خلاص haddaad hubtid inay qamri ku jiro aqi haddaad hubtid inuu qamri ku jiro qamriga iyo sigaarka isku mid maaha qamriga iyo sigaarka waa kala duwan yihiin haddii marba qamriga waa sheegan asal ahaan ay nusuus u xarantamaysa kan laakiin ma baaba qiyaas imaanba wuxuu ku yimid iyo فرع ahaan ayaa u yimid waa la isku khilaafsan yahay sigaarka daarti laakiin qamri xaraam nimadeed qof isku khilaafsan ma laha saas daraadeed haddaad ogaatid kartoonada qamriga inaad waardiya kaga leysa ilaalinaysid ama aad xambaaraysid qaadaysid ka tag shaqadaas xal kale mala insha Allah dhinaca kale halo assalaamu calaykum wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh usuli oo ku salaam marka hore barakallahu fiik waa ibrahim sheekhu waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood tan koowaad waxaa waaye waalidkayga oo nool xajka anoo ayagu geenin an ma aadi karaa kow tan labaadna sheekho waxaa waaye adoo salaad ku jirto lacala maqashay saliga nabiga maqashay marka ma ku salinaysaa mise waxaa waaye maqashid saliga nabiga alayhi salatu wasalaam saliga nabiga maqashay salaadna ku jirtaa nacam ama tan koowaad oo ah waalidkayga lacag ma ka bixin karaa xajka iyaga ma aadi karaa anigu xajin haa waa aadi kartaa xajka baab taraakhi weeye oo fawri maaha oo nabiga calayhi salatu wasalaam laftigiisa xajka ugu dambeeyo xajiyey dad kale ayaa asxaabta ayuu dirayay marka waa bannaan tahay adigu xajka aad gelin inaad aad waalidka xaj ka bixisid xaj ka dhiibtay iyaga aadaan ama hadday dhinteen qof xajiyey oo hore u xajiyey alcagsiisii u xajiyaan waalidkaaga taas way bannaan tahay tan labaad oo ah qofka
salaada inti marka hore sidii axaadiis noo sheegtay qofka markii uu wax banaanka ka maqlo qofku salaam hadduu ka maqlo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam asoo salaada ku jiro radi jiray laakiin waa la mamnuuc marka dambe maxaa yeele qofka waxaa uu filan mashquul inuu ahaado marka mar hadduu salaada ku jiro walmashquulu laa yushqal nin mashquulin lama mashquuliyo haddana marka haddaad maqashid ma aha inaad taas u jawaabtid laakiin adiga salliga nabiga alayh salatu slam iskaaga salli karta adoo salaada ku jirto salaada ma jibinayso salaada nabiga alayh salam waa dikri laakiin haddii min baab almukhaataba ay timaado oo qof u jawaabaysid ama aad wax ka celinaysid ma banaano marka taas uga taas insha allah dhinaca kale السلام عليكم شيخ سولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan ku weydiin rabay hadda ka hor company aan u shaqayn jiray oo Yurub ah ayaa xilliga oo Christmaska markii la gaaro ogtahay oo macnaha hadiyooyin ay bixiyaan qaarkood lacag bay bixiyaan qaarkoodna waxay bixiyaan alaabada cabitaana iyo waxaas. marka waxaa jirtay companygaas aan u shaqayn jiray in dhammaan shaqaalaha companygaas ka wada shaqaynayo loo soo wada diri jiray ama diid ama doon box ay ka buuxaan waxyaalaha khumuur iyo waxaas balse ani weligay alxamdulilah gacanteeda kuma taaban oo ma qaadin oo markii ay yimaadaan alaabta yimaadaanne nimanka aan isla shaqeyna maxaan ku rahdaa gaalada ayaa iga sii ballansan jiray oo dhihi jiray maaragtay annagaa rabna ee nasii gacanteedana ma saari jiray markii boxku yimaadana u fasixi jira qaataan dhihi jira aniga ma rabo shaqo kuma lihi marka taa dembi ma iga soo gaarayo maya haddii aad waxa aad awoodid haddaa awoodin inaad qaadato qof waa sii kartaa maxaa yeele inaad qubtid maal maaha ida anaga wax kastoo xaaraan agteena qiimo kama laha wax lagu intifaacaya ma laha marka masaladaas bacd culamaa waxay qabaan inaad siinin laakiin bacd culamaa waxay leeyihiin haddaad tiraha min baab albari ah hadda saa sheegto ani baryaanka ahay qaata idinka haddaad tiraahiin لا بأس واحد دين بأكل هذا مال إن شاء الله. وحبا ما تابن جرا حتى كمبني مر وحن يجي جرا ما أعرف مرة مجعي هكسو درينا أو بوكس كاساني هاي كينينا. ولي واسع عسد تاس واسع عسد وكوا مركا نعم واحد دين ممكن. مركا وحير هذا وحنا عن حكومي كرنا وحن كنترول كرنا ما عن كمبني وين كإيمان إسا شغالو رنا مجعي ذا لوكسو دريا هذيك ساد دون تيال. أنا مركا ما تابن جرين بو أو يجا سانسين جرا شغالها إلى شقايا أو كعلى لا بأس إن شاء الله. إن حديث واجر النبي عليه الصلاة والسلام مر لو كاني go oo wax lahaa uu yiri nin mushrik hala siiyo waa jiray oo macnaha islaamka ama sawiro ama waxuu lahaa uu nabigu u diiday calayhi salaatu wasalaam marka haddaad min baab baraa u samayso insha allah dibi kuma lihid insha allah dhinaca kale asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa axmed miro faarax oo si toosa kaga socaya caasimadda dalka uganda ee kambala tafadal akhi sheekh usuuli waxaan ku weydiinaa su-aal baan qabaa su-aashaas waxaa waaye qofka aan salaada tukanin oo salaadan oo naweytu aan dhihin janaasada ma lagu tukan karaa qofkaas asalka qofka aan salaad tukanaynin oo salaada waxay u baahan tahay in baaritaan lagu sameeyo laakiin haddii qofkaas oo kale hadda uu laga sheekaysan yahay qof inuu la xukmo weligiis naweytu ma dhihin waa adag tahay maxaa qof daba socota ma laha islaamkana qofka markasta in cudur daar loo raadiyo asalka ah marka qofkaas oo kale oo muranka galay waxa wanaagsan dadka ahlu khayrka ah culimada inay ku tukanin janaasada laakiin dadka caamada naas inay ku tukadaan ama haddii la xaqiijiyo inuu salaadii inkiray oo qofka diiday markaas oo kale waxay u baahan tahay isbaaday u baahan tahay kaliya annaga waxaan aragnaa isbaatka qof wuxuu ku leeyahay ninkaas waa la yaqaanaa ma tukan jirin saas looguma xukumi kara shareecada islaamka waxaa laga yaabaa inuu inkaar ay ahayn inuu kasal ugu tagay inuu mararka qaarkood tukaday oo ilaahay hanuuniyey oo haddana ka baxay wax kasta ayaa dhici kara laakiin inta badan soomaalida qabarka meeshii ka helayso waa arrinta hadda shahaada zuurka aan ka hadlayn oo kale qof ayaa waxaa leeyahay hebelaay ma tukan jirin waa lagu xugmaa hadhow marka culimadii aa loo keena waxaa leeyahay hebelaay ma tukan kara wal hal qof iyo laba qofood markaatigooda qof dhintay inay shahaado ku noqoto shahaadada qadaa weeye baabkaas oo kale qofka in lagu xukmay kufri laysa ma aha baab iftaa ma aha baab alqadaa weeye kufriga xukmanka kufriga baab alqadaa weeye qaadigana waxaa la rabaa inuu bacda tafaxusin oo baaro inuu xukmiyo qofka inuu gaal yahay marka hadduu qofku gaal yahay in la xukmo markaas ma lagu tukanayo laakiin qofka la isku haasta mar kasta oo saas oo kale ah soomaalida hadda say warka ku hesho wax la iska shaacay hal qof aa loo sheegaya qofka kale maqlayo qofka kale maqlayo ninka xugana la iskaga ridaa taas ma la dhihi karo walidaalika maadaama ninka soomaalida asalkiisa aan ku naqaan inuu nin tawxiidka qabsanaya yahay oo dad alxamdulilah ilahay nicmadaas uuna siiyey waxaa wanaagsan qofka saas oo kale oo looga shakiyo ama warkiisa soo shacab wax markuu dhinto ma tukan jirin la dhaho inuu yidhaha dadka culamada iyo wajaahada iyo dadka ahlu khayrka inay ku tukanin ay yidhahaan idinku ku tukada si ay canaan ugu naqato
dadka kale maxaa yeele dadkan culummada ah ducadooda ilaahay iyo dadkan ahlu khayrka ah waxaa laga yaabaa ilaahay ducadooda iyo u duceeyeen inay ilaahu aqbalo marka kuwa kale ayaa canaan ku qaadanayo saas daraaddeed culamadu waxay yidhaahaan dadkaas kuma tukadaan lakin dadka caamada waa loo ama haddii maxkamad ama qaadi uu xukmiyo qofka inuu gaal ahay oo salaadii inkiri jiray falaa yusalla caleyh laguma tukanayo balse laguma tukanayo maahane qubuuraha muslimiinta xataa ma lagu aasayo markaas maxaa yeele axkaam badana ka tarartamayso bal qubuuraha islaamka ma lagu aasayo maahane xaaskiisa xataa waxay noqonaysaa inuu dhaxal iyo wax ku lahayn maxaa yeelay qofka haddii gaal noqdo xaaskiisa automatic ugu furmaysaa marka xaaskiisi iyo ilmihiisi iyo xataa ilma haddoo gadaal ka dhala xataa ilmo waxay noqonayan oo xaaraan ku dhashay masalada ma sahlan marka qof layska yidhaaho ma tuku jirnay yaa lagu tukanin axkaam fara badana ka dababaxays marka hala hubiyo arrintaasna yaa lagu degdegin aan lehay insha allah baaraka allah fiik dhinaca kale asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakatu sheekh usul waan ku salaamay baaraka allah fiik akhi waxaan ku weydiinaya sheekheen jazaaka allah khayr waxaa su-aal yaroo markasta igu soo labaa noqoto marka khudbadaha jamcaha qofku runta ha sheego waxaa jirtaa qofku hadduu iminka wadan nabada ka yimiday isagana xanuun buu qabaa xanuunkii wadankii kelinadii maaragtay amba xanuunkiisii waxaa la yidhi wadanka laguma daweyn karayo wa garta isagiina maaragtay maxaa la yidhaa wadankuna waa nabad marka wadan yurub uu yimiday oo visa buu soo qaatay wadankiiba haddana markii dambe yidhi wadankaabaa naho wadan kaloo isku sheegay wa garta dee markii dambe kelinadii baa la siiyey alxamdulilah wixii baa loo qoray alxamdulillah hadduu wadanka ku noqdana dee wixii ma helaya xagga dee markastuu khudbadii aan jimcaha maaragtay dhegaysto waxay noqonaysaa wixii inaad dee been sheegayso oo kale dee ba arrintaa bal ma iga shafeyn karaysaa arrintaa maxaa tiri khudbada jimcaha macnaha markuu wacdi dhegaysto ha wacd uu dhegaysto qofkii uu maqlo qofka runta ha sheegay rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam qofka saddexda maaragtay qofka runta ku jirtay inuu qofka runta sheego عليك بالصدق وفي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه نعم نعم qofka dembi waa ka dhici karaa markuu dembi ka dhaca ilaahay u tooba keeno dembiga qofka markuu ka dhaco waxaa la rabaa ilaahay inuu u tooba keeno oo ilaahay u laabto haddii dembigaas uu ku jiro marka wax xuquuq kale ah hadda soomaalida yurub joogta dhana masaladaas qabaa'il kale isku dhiibeen markay imaanayeen dembi way galeen waa inay ilaahay u tooba keenaan waxaa laga yaabaa dhimasho been ay qorteen waxaasoo dhan in ilaahay dembi waa lagu qaban karaa laakiin wixii ka ratimo oo asaga shaqaysta markuu yimaado hadduu shaqo helo oo shaqaysto macnaheed maaha xoolihiisa dhan xaaraan inay noqonayaan maxaa yeele xoolahan kasbigiisa ku yimideen maxaa yeelay dunubta waxaa jira waxna isku xiran iyo jiha munfaka waxa la dhahay marka waa la kala gooyaa shaqadoo qabtay oo lacagta ku shaqaysta xalaasha iyo asalkiisa ku yimid waa la kala jari karaa labay kala yihiin dembigaas ilaah ugu tooba keeno waxaan uu shaqaysan xalaal ay u noqonaya insha allah dhinaca kale halo imidiyo maaragtay arrintaa uu sheegtay wadankaa uu sheegtay wax dhib oo soo gaaraysa xaggaa ma jirto isaga waa ilahay inuu ka tooba keenaa dembi weeyaan toobaa laga doonaya markaana laakiin ilaahay wuu toobad keenaya laakiin xaggiisa mu joogaya mise uu noqon karaa may waa joogi karaa hadduu rabo marka hadduu xaggiisa dhib ku qabo oo daawada halkan ka helin waa ka heli karaya insha allah laakiin ilahay ugu tooba keeno wasiiladaas uu ku yimid keliya ilahay ugu tooba keeno insha allah jazaaka allah khayr nacam dhinaca kale low السلام عليكم شيخ وسولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك waxaan doonaya hal su'aal inaan ku weydiiyo. haye sheekh inaan walaalnahay oo Sacuudiga joogta ayaa waxay haysatay lacag $6,000 waa garta marka inaan walaalnahay muxuu ahaayay Nairobi jooga ayaa wuxuu yiri waa lagu shaqeynaa lacagta keen waa garta marka qaar ganacsato u dhiibay lacagtii hal sano ka bacdi waxay noqotay $7,200 waa garta kowda marka iyadana waa ka shakada waxay tiri malaa lacagtaasi $1,200 ku soo biiray waa ribo bal sheekhay weydi lacagta ma qaadan kartaa ganacsiga wuxuu ku qabtay ma sheegin maxaa lagu qabtay wuxuu ku qabtay muu sheegin may aniga ma sheegin adiga si aan u sheegno in xaaraan yahay hala weydiiyo wuxuu ku qabtay asaga in la weydiiyo hawsha uu qabtay inuu ribo ku keenay iyo inuu ganacsi xalaal geliyay hala weydiiyo asaga haye insha Allah sheekh barakallahu dhinaca kale halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخو سؤال ربنا كويتيو ميل waxaan ka shaqeeyaa oo dadka weeyilad lagu haayo. Waa gartay. Wadamadan qurbahan jooga. Marka meesha mararka qaar waxaan oo la keenaa cunto aan xalaal ahayn oo qansiir ku jiro. Waayeelkan waayeel asaga awood leh oo gacantiisa wax ku cuni kara maahan. Marka af intaan jirjiro aan afku u gelgeliyaa. Marka qansiirka maalin kasta maahan oo asbuuci mar meelahaas waaye.
marka lacagta aan kasoo shaqeeya sadaqo aabeeyo dhinta ama hooyadii jiran ama eedayaasha sadaqaada ugu dhiibo oo gurigeyga ilmihiina aan keeno maxaa dembi miya way maadaama hoosh inta badan oo qansiir ku jirin oo waxaana dhididka kasbata lacagta xalaal ay ku tahay laakiin dembi ma tahay ha naam dembi waa gashay oo ah qofka inaa ku caawinsa qansiirka marka shaqada qansiirkaas oo kale waxyaabaha ilaahay ku ibtilay waaye dadkan Yurub joogo ka raadso ama qofka u sheeg shirkadda qofka u shaqeynaysa aniga qansiir ma taabanayo ama man ka shaqeyn karo qofna ma siin karo dheh taasa ku wanaagsan asalka ah qofka inuu diintiisa u muujiyo laakiin kasbiga aad ka kasbatay oo ah oo marmarka wixii soo dhax galay waati hadda sheegano xaalaanta iyo xaaraanta dee badato xalaasha dhinaceeda la marsiya sadaq waa ka baxsan kartaa xoolahan xalaal ku yihiin insha Allah laakiin shaqo kale ka raadso inaad qof xaaran asiiso inaad raali ka noqoto insha Allah su'aal kale oo ku weydiin waa sheeqo aniga ninkeyga dhowr maraan kala tagnay marka dalaaqyadii hore oo dhacay hadda aroos nikaax cusub aan dhigano ma soo laabanayaan mise waa bis waa tagay waa hadda 3 jeer oo ku furay ilaa nin kale ka guursato kuma laaban kartid ma laba maraan kala tagnay marka saddexaad hadda isku waqti halkii haraas ku qabnaa was qabtaan oo isku soo noqotay marka nikaax kala sameynaysid muxuu yahay marka labadii hore inaan soo celino ma soo noqonays labada raqo hadduu ku furo xataa hadduu ilaa nin kale ka aroorsid ma si kale ma kusoo noqon karto laakiin anagoos qabna xuma ma dhici karaa marka nacam hay sheeko ma dhinaca kale halow halow qofkaas waxaa malay TV-ga u dhegeysanaya dhinaca kale halow هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وسلام سلامي. بارك الله فيك. شيخ waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofka hada qof muslina uu yahay oo geeriyooda hadii qabuuro oo gaalo ku duugan tahay hal kanjee lagala geliyo ma xaraam baa mise waa xalaal hadii la geeyaa waxaa la geenayaa qabuuro oo gaalo ay leedahay laakiin dhinacna gaalaa ku duugan dhinacna islaana ku duugan نعم dib mala insha Allah waa duruufaha Yurub ay taala dawlado badan asaas dhul ahaysan muslimiinta walidaalka dadka community-da muslimiinta markasta qabanaya oo dhahay anaga umada u qadmeynayna waxa umada lagu qadmeeyo waxa u wanaagsan wax diinta ku kaalmeynayo marka inay dadaalaan ay qabuuro ay iibiyaan oo la gado qabuuro muslimiin ah sida dawladaha qaarkood ay sameeyeen dadkaas community-daas dimbi inay ka kalabsaan laga yaaba laakiin haddii ay separate ay kala yihiin ay kala baxsan yihiin la baas insha Allah wax dhib ma laha insha Allah laakiin waxaan aragnaa dad qubuuraha gaalo lagu dhex duugaan aragnaba oo gaalna inta ku duugan yahay intan ayaga lagu duuga taasaa mushkil ah walidaalka dadkaas community-da muslimiinta mas-uuliyin weyna saaran inay muslimiintaas arrintaas ay ka badbaadiyaan ay dhul u iibiyaan ay aruuriyaan maalin kasta waxaan maqalnaa masaajida la dhisaa lacag loo aruurinaa shimiteeradaas oo kale lacag in loo aruuriyo ayaa muhiim insha Allah dadka meesha lagu aasayo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo hal bil uura aan leeyahay marka bishii labaad marka ii bilaaban rabto bishii koowaad ii dhammaan rabtay dhiiga iga imaaday dhiigaas daahir miya salaada ma tukan karaa anoo qabo mise meeqa bilood ma ahayd markaas hal bil waay hal bil ha uurku hal bil ahaa hal bil ha marka dhiigga sidii kii hore intaad uurka qaadan ma u socoyey sida intaad uurka qaad dhiigga ka imaan jiray ma ka yimid oo muddo soconaya maalmo soconaya mase hal mar uu yimid oo iska istaagay maya hal mar ma socon ilaa iyo hadda uu iga socdaa oo waxaa waaye adi wax yar waaye kii horena ma u eka kii hore tan caadada uma eka nooc kale waaye muddaduu yimid muddada caadada kugu dhici jirtay miya may ma aha muddadaas may 16 caadada ugu dhacda hadda dhiiggan wuxuu yimaadaa 28 yimaad bishan نعم هدو دلن أهين دكتورنا أو تكتيد أو ليرة نفاس أو نقضوا أما أو ديج أو عرورته أو نقنين دكتورك وحي شيء يعني مالها بيبدأ عبلة إدهان داوين اللي قمصين كرا كهذا أور بشيء ساعة كمبيوتر كولي أور كموسى صاري مع مركز صلاة هذا كتب إن شاء الله مركز ديك فازت وي صلاة هذا كتب إن شاء الله واتوكنا صلاة كتبك ها مرة بعد دقاتير أور كيا ولي جراء لها يعني ديك فازت ونقن كرا مركز إن شاء الله waxaan filayaa su'aashaas ayaa ugu dambeysay
waqtiga gabagaba ah wax haddaan qalday nafteedii shaydaani ka ahaata ilahay iga cafiyey dhammaanteenba haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaha astaqfir atuubu ilayh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inaad ku dadaashid marka hore toobatan nasuuxa ilahay inaad u tooba keentid maxaa yeelay qof dembi ku jira marka hore ilahay si uu hor istaagaya oo camalka loogu aqbalaya waxyaabaha oo ilaahay subxana wa tacaala ugu naxariisto ummadda maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a inay camaal yar yar ay sameeyaan oo ajir fara badan ay ku helaan halkan markaad joogtaan wadamada reer galbeedka markaad joogtaan ma u joogtaan soomaalinimo uma joogtaan lagama fiirinayo soomaali inaad tihiin qabaa'ilka ka dhalateen uma joogtaan inama waxaad xambaarsan tihiin risaalada islaamka aad xambaarsan tihiin xusnu quluqa in ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam aqrabuhu majlisan yowma alqiyaama in ninka ugu dhow qiyaamaha inuu naqanayn ninka ugu taqwo badan ama ninka ugu salaad badan keliya